الله أكبر الله. ayaa Sofia oo ahayd ku dhawaad 68 sano mutxaf ama goob loo dalxiis tago waxaa dib loogu soo celiyay sidii uu ahaa masjid muddo 481 sano ah. dib u soo celinta masjidka ayaa Sofia ayaa yimid kadib go'aan ay soo saartay maxkamadda sare ee dowladda Turkiga iyada oo go'aanka maxkamadda uu barbar socday dhaleecayn cambaareen iyo diidmo qeexan oo ka imaanaya dhanka dowladaha reer galbeedka halka go'aanka dib u soo celinta masjidka ayaa Sofia uu ka farxiyay malaayiin muslimiin ah oo ku kala nool daafaha dunida. اليوم نحن أبطلنا هذا القرار وأعدنا آيا صوفيا إلى جامع مرة أخرى بعد 86 عاما. haddaba masjidka ayaa Sofia muxuu kaga duwan yahay masaajidada kale ee Turkiga maxaa keenaya doodo fara badan in ay ka dhashaan muxuuse ummadda muslimiinta uga dhigan yahay in 86 sano kadib dib loogu tukado masjidkan taariikhiga ah dhinaca kale maxay uga xumaadeen wadamo badan oo Yurubiyaan ah soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aynu uga hadlayno masjidkan taariikhiga ah marxalado kala duwan soo maray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalintii jumcada 24 bishan aynu ku jirno waxay u ahayd masjidka ayaa Sofia iyo kumanaan muslimiin ah maalin ciideed iyadoo kadib 86 sano ay tahay markii ugu horeysay ee lagu tukanayo salaada jumcaha. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku furfuray aayadaha Quraanka Kariimka ah ka hor inta aanay bilaaban khudbadda jumcaha. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. wasiirka arrimaha diimaha ee dowladda Turkiga Ali Arbash oo ahaa khatiibkii jumcada ayaa fuulay mimbarka isagoo gacanta ku sita seeftii Sultan Maxamed Al-Fatih halkaana ka jeediyay khudbad taariikhi ah tilmaamayna dib u soo celinta masjidka ayaa Sofia in ay bilow iyo rajo u tahay masaajidda kale ee murugaysan caalamka ee ugu horeeyay masjidka Al-Aqsa. in ka badan 350 kun oo muslimiin ah ayaa ka soo qayb galay salaada jumcaha gudaha masjidka ayaa Sofia. juqraafi ahaan masjidka ayaa Sofia waxa uu ku yaalaa mandiqada lagu magacaabo Sultan Ahmed ee dhacda Istanbul qaybteeda Yurub. goobtan ayaa ah goobta ugu dalxiiska badan magaalada Istanbul iyada oo kulmisa masaajid iyo dhismayaal fara badan oo taariikhi ah. markii ugu horeysay ee la dhisay dhismahan waxay ahayd 360kii miilaadiyada islaamka ka hor 240 sano xilligii boqortooyadii Kristaanka ahayd ee Byzantiniyiinta ama loo yaqaanay Rome waxaana waaga loo oran jiray goobtan Mikhail Ecclesia ama kaniisada weyn. waxaa dhacay isqabqabsi u dhaxeeya kaniisadaha dhexdooda madhabka Orthodoxiga iyo Catholiga labada madhab ee ugu waaweyn Kristaanka iyada oo kaniisadu ay la kulantay marar fara badan burbur gubasho iyo in la boobo. sanadkii 532 miilaadiga ayuu amar ku bixiyay boqorkii Romaaniga ahaa Justinian ee maamuli jiray Spain ilaa iyo bariga dhexe in laga dhiso goobtan kaniisad aad u weyn wuxuuna raadiyay injineerada ugu caansan caalamka ee dhisa qusurta waaweyn iyo dhismayaasha taariikhiga ah si ay u dhisaan kaniisad aan horey loo arag weynankeeda baaxadeeda iyo quruxdeeda si ay u noqoto madal diimeed ay ku faanaan madhabka Orthodoxiga sidoo kalena ay calaamad iyo shicaar ugu noqoto dowladii Byzantiniyiinta. waxaana loo doortay inay dhisaan labadii injineero ee Yunaaniga ahaa Isidro iyo Anthemios iyada oo dhismaheeda uu qaatay muddo ku dhawaad 5 sano oo xiriir ah 532 ilaa 537 miilaadiyada. goobtan ayaa markaasi loo dhisay si ay u noqoto kaniisada ugu weyn ee madhabka Orthodoxiga iyo inay tusaale u noqoto awoodii dhismeed ee Byzantiniyiinta xilligaas. waxaa la sheegaa in boqorkii dhisay kaniisadan aad uu la tacajubay markii la dhisay weynankeeda baaxadeeda iyo quruxdeeda iyada oo uu u bixiyay Hagia Sophia ama Hagia Sophia oo macnaheedu loola jeedo xikmadda muqaddaska ah ama xikmadda Rabbi. waxay ahayd kaniisadan mid matasha dowladda Kristaanka ahayd ee Byzantiniyiinta iyadoo ka mid ahayd xilliyadii la dhisay dhismayaasha ugu waaweyn ee xilligaas wax badanna ka bedeshay qaab dhismeedka caalamka. haddaba Hagia Sophia maalin maalmaha ka mid ah
waxa ay ahayd ramsiga ama saldhigga masiixiyiinta ortodogsiga ku dhowaad 900 sano laga soo bilaabo 395 miilaadiyada ilaa iyo 1453 miilaadiga oo ku beegnayd xilligii burburkii imbaraatoriyadan. wixii ka dambeeyay burburkii boqortooyadan, magaalada Qustantiniya oo ahayd caasimadii Byzantiniyiinta waxaa la wareegay Sultaan Maxamed Al-Faatix iyo ciidankii khilaafada muslimiinta ee uu hogaaminayay 1453 kadib dagaal qaatay 5 maalmood. waxaa dhacday in ciidankii muslimiinta ay ka waayeen magaalada goob ay ku cibaadaystaan ama ay ku nistaan iyada oo lagu jiray xilli qabow ah. arrintan oo keentay in uu Sultaan Maxamed Al-Faatix iibsado kaniisadda aadka u weyn iyo weliba dhulka ku hareeraysan, 2 ragcadood oo sujuud shukri ahna ku tukaday markii ugu horeysay maalin Jumco ah. dhismaha sida uu ahaa wax badan lagama bedelin, waxaana lagu soo kordhiyey dhismayaal aad u qurux badan sida mimbar iyo 4 minaaradood, kuwaasi oo ilaa iyo maanta aad ka dheehan karto Hagia Sophia, iyada oo kaniisadda gudaheeda sawiradii ruhbaanta ee kala duwanaa lagu bedelay kuwo islaami ah sida magacyada Ilaahay, rasuulka iyo weliba khulafadii 4 ahayd. haddaba Hagia Sophia dhismo ahaan waxa ay soo koobaysaa xadaaradii dowladda islaamka iyo tii Byzantiniyiinta oo la isku daray. arrinkan oo Hagia Sophia siinaya muhiimad aad u weyn dhismo ahaan. wixii maalinka ka dambeeyay Hagia Sophia waxay ahayd masjid ku dhowaad muddo 5 qarni ah, sumadna u ah guulihii dowladda islaamka ee ay hogaaminaysay khilaafadii Cuthmaaniyiintu. sidoo kale magacii Qustantiniya ayaa loo bedelay Islaambul oo macnaheedu yahay guriga islaamka. wixii ka dambeeyay sanadii 1923 markii ay burburtay khilaafadii ugu dambeysay ee muslimiinta, xukunkana la wareegay hogaamiyihii cilmaaniga ahaa ee Mustafa Kemal Atatürk oo ahaa asaasihii dowladda casriga ah ee Turkiga, ayaa waxa uu bilaabay dadaalo uu ugu jiro sidii uu u tirtiri lahaa shacaa'irta islaamka iyo dhaxalkii islaamiga ahaa, isaga oo magacii Islaambul oo macnaheedu ahaa guriga islaamka uu u bedelay magaca hadda loo yaqaano ee Istanbul. sidoo kale masjidkii Hagia Sophia oo ahaa muddo 481 sano goob alle lagu caabudo uu u bedelay mutxaf 1935 kadib muddo 4 sano ah oo uu xidhnaa, iyada oo halkii shalay lagu cibaadaysan jiray uu noqday goob loo dalxiis tago, noqdayna goob lagu galo lacag aad u fara badan, mamnuucna ay tahay in lagu tukado ama gudihiisa wax cibaado ah lagu sameeyo, mamnuucayna aadaanka gebi ahaan in laga dul adimo. masjidkan in loo bedelo mutxaf ayaa ka mid ahayd dadaaladii uu Kemal Atatürk uu ku damacsanaa inuu ku tirtiro dhaxalkii dahabiga ah ee khilaafadii muslimiinta iyo dhammaan astaamihii iyo shacaa'irtii diineed ee ummadda muslimiinta ee Turkiga. اليوم نحن أبطلنا هذا القرار وأعدنا آيا صوفيا إلى جامع مرة أخرى بعد 86 عاما كما كانت وصية السلطان الفاتح لهذه المدينة. go'aan ay soo saartay maxkamadda sare ee Turkiga ayaa lagu go'aamiyey dib u soo celinta masjidka Hagia Sophia, iyadoo meesha ka saaraysa go'aan ay hore u qaadatay dowladda Turkiga sanadii 1935 iyada oo Rajab Tayyip Erdogan uu ku tilmaamay go'aankaasi mid aanan waafaqsanayn qaanuunka. maxkamadda oo cuskatay in goobtan ay tahay waqfi uu u hibeeyey Sultaan Maxamed Al-Faatix, lacagtiisa gaarkaana uu kaga iibsaday ruhbaantii kaniisadda iyo dadkii lahaa dhulka ku hareeraysan oo dhan, ilaa ay haddana ay taallo warqaddii kala saxiixashada dhulka ee Maxamed Al-Faatix ku iibsaday kaniisadda. sidoo kale maxkamadda ayaa soo daliishatay in dhulkan uu yahay meel ka wada dhaxaysa dhammaan ummadda muslimiinta caalamka, taasoo macnaheedu ay tahay inaysan jirin cid si gaar ah u leh dhulkan, iyadoo la waafajinayo dardaarankii Sultaan Maxamed Al-Faatix. balse maxaa dhacay kadib go'aanka maxkamadda؟ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفي تعبير عن قلق واشنطن من هذا القرار كتب يوصي السلطات التركية بالحفاظ على آيا صوفيا كمتحف واحترام التقاليد الدينية والتاريخ. من جانبه قال البطريرك بارثولوميو أحد أبرز رموز الكنيسة الأرثوذكسية wixii ka dambeeyay markuu soo baxay go'aankii maxkamadda sare iyo wareegtadii uu soo saaray Rajab Tayyip Erdogan, waxaa ka dhashay dhaleeceyn iyo hadallo kala duwan oo ka imaanaya dhinaca dowladaha Kiristaanka ee reer galbeedka, kaniisadaha Ruushka, Mareykanka iyo Giriigga oo markii horeba xurguf siyaasadeed ay kala dhaxaysay dowladda Turkiga, iyo weliba qaar ka mid ah warbaahinta dowladaha Carabta oo inta badan dagaal cad kula jira dowladda Turkiga. ugu dambeyntii, masjidka Hagia Sophia ma ahan oo kaliya goob cibaado, balse waa goob ka tarjumaysa guulihii ay gaareen muslimiinta iyo jabkii xoogganaa ee loo geystay saliibiyiinta caalamiga ah ee ilaa iyo maanta aanan ka joogsan dhakridda iyo la dagaalanka muslimiinta. kadib 86 sano
waxa ayaa Sofia dib loogu soo celiyey astaantii diineed iyo in lagu cibaadaysan karo isaga oo ku soo biiraya masaajidda aadka u qurux badan dhismo ahaan ee ay caanka ku tahay Istanbul. balse dib u soo celinta masjidka Hagia Sophia ayaa ah mid farxad gelinaysa malaayiin qulubta muslimiinta ku kala nool Turkiga iyo guud ahaan caalamka. أشهد أن لا إله